بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا شبكة Sayax oo aad uga barateen inay soo bandhigto cilmiga teknolojiyadda waxaan casharkan kaga hadlaynaa sida computerka looga bedelo passwordka inagoo isticmaalaynin wax software passwordka computer aadan aqoon haddii aad gudaha u soo gashid sidee ayaad uga bedeli kartaa casharkan waxaan u bixinaynaa for educational only oo ah aqoon guud oo mataqaana qofkaan u faa'iideyno wixii inta ka baxsan qofkii uu isticmaala mas'uuliyadeeda anagu ma lihin inta kadib waxaan tagaynaa talaabada ugu horeysa waxaan tagaynaa this pc waan ku dhufanayaa kadibna right click manage kadibna waxaan dooranayaa local users waxaan ka sii dooranayaa users waxaan click siinayaa users kadibna waxaan ka dooranayaa userka aan u baahanahay inaan passwordka ka bedelo oo ah Ibrahim waan dul tagayaa kadibna right click ma oranayaa set password kadibna waxaan dooranayaa proceed waxaan halkan gelinayaa passwordka aan u baahanahay passwordka aan ku bedelayo kii hore ee computer ku xidhnaa waxaan gelinayaa 2332 kadibna halkan waxaan gelinayaa 2332 kadibna waxaan leeyahay okay the password has been set hadda waa u bedelay okay kadibna cancel qodobka labaad ee aan ku bedeli karno waxa weeye waxaan tagaynaa start menu kadibna halkan waxaan ku qornaa cmd waxaan dul tagayaa cmd waxaan leeyahay right click kadibna waxaan dooranayaa run as administrator kadibna waxaan leeyahay yes halka ku qoran marka hore fiirinayaa userska computerka aan isticmaalayo net users baan kadib waxaan leeyahay enter waxaan halkan aragnaa userska loo bixinayo administrator ah in passwordka aan ku bedelno kadibna waxaan leeyahay net users user Ibrahim waxaa muhiim in magacu siduu yahay userka loo qoro aadan waxba ka bedelin kii capitalkii small and small kadibna waxaan qoriyaa xiddig net user Ibrahim space xiddig kadibna waxaan leeyahay enter wuxuu leeyahay geli passwordka cusub ee hadda aad gelinayso oo kii hore aad ku bedelaysid waxaan gelinayaa 1122 kadibna enter 1122 kadibna enter waan ku guulaysanay bal aan tijaabiyo oo loo geliyo waxaan isla qorayaa windows plus L waxaan kaga saaray passwordka cusub oo ah 1122 hadda waan ku guulaysanay waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan fadlan haddii aad ka heshay casharkan ha ilaawin inaad subscribe tiraahdo YouTube channelkeena si aad u hesho casharo walba oo aan markaas soo